نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalayaal waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago. walaalayaal, qofku wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad. ruuxdu qofku waxbay quudataa, jasadku qofkuna waxbuu quutaa. wuxuu rasuulku inoo sheegayaa calayhi salaatu wasalaam in ruuxdu qofku ay quudato qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullahi sal alla alay wasalam, halka jasadku qofku uu quuto walaalayaal waxa aynu cunayno ee macmacaan sida hilibka, kalluunka, digaaga, baastada iyo maaragtay macmacaanka, sharaabka iyo wixii la mid a. inaan labisano oo dhar qurux badan qaadano, jasadka ayaa quudanaya iyo jirka ayay anfacaysaa. in qofku uu ka tago meel kulayl ah oo meel qabow uu tago, jasadka ayaa u baahan. qofku inuu meel qabow uu ka tago, meel kulayl tago, sidoo kale meel kulayl inuu ka yimaado, meel qabow uu yimaado. waxaasoo dhan walaal waxa quudanaya jasadka qofka. laakiin ruuxdu waxay quudataa qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam. sidaa awgeed walaalayaal, waxaa laynooga baahan yahay, rasuulku wuxuu leeyay sal allahu calayhi wasalam, balliquu walow aaya. haddaad hal aayad barataan, ummadda iga gaadhsiiya. aayaddaasoo ah aayad qur'aana ama maaragtay xadiid intaba. sidaa awgeed walaalayaal, waxaa muhiim ah, waxaynu ku jirnaa waqti adag, waqti dhalinyaro haddaynu nahay, rag iyo dumarba lagu mashquulsan yahay social mediaha, waqtigana lagu luminaya inta ugu faraha badan leh. sababtoo mobilka waad haysaa, saasaad u eegaysaa saa daqiiqad halka qofku tasbiixda looga baahnaa subxaana allah walxamdulilah walaa ilaha illa allahu akbar inuu ku dadaalo, ee wuxuu ku dadaalayaa waqtigiisao dhan uu ku luminayaa inuu mobilka eego, kan roog kan eeg. waxaa laga yaabaa dhigahaaga inay maqlaan waxaan ilaahay raalli ka ahayn. waxaa laga yaabaa indhahaaga inay arkaan waxaan ilaahay raalli ka ahayn. waxaa laga yaabaa afka inaad ka tiraahid waxaan ilaahay raalli ka ahayn. waxaa laga yaabaa maskaxda inaad ka qorshaysid waxaan ilaahay raalli ka ahayn. sidaa awgeed baa walaal waxaa loo baahan yahay in aynu usoo noqono diinteenna, inaynu usoo noqono ilaahay subxana wa tacaala awaamirtu ina farayo oon ilaahay subxana wa tacaala raacnaa, kuna raacnaa dariiqii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. rasuulku sal allahu alay wasalam waatuu xadiis inugu lahaa kudayashada, yani waxay noogu sugnaatay rasuulka sal alla alay wasalam kudayasho wanaagsan. rasuulkuna waatuu xadiis inoogu sheegayey, salluu kamaa ra'aytumuunii usalli, u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya. sidaa awgeed baa walaalayaal loo baahan in rasuulka lagaga daydo dabeecadaha wan wanaagsan, dulqaadka, sabirka, wax walbo aad siinmayni sidoo wanaagsan in rasuulka kaga dayno calayhi salaatu wasalaam. sababtoo rasuulku wuxuu nabi calayhi salaatu wasalaam, haddaad ogaan lahaydee waxaan ogahay in badan ayaad ooyi lahaydeen, in yarna waad qosli lahaydeen. law taclamuuna maa aclam labakaytu kathiira walaxagtu qaliila. haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in badan ayaad ooyi lahaydeen, in yarna waad qosli lahaydeen. sidaa awgeed baa walaalayaal waxaynu ilownay qof walba mashariiq qiyaami ilahay hor istaagii xisaab inay ka dambayso, nafteenu inay u baahan tahay inay dhegaysato khayrka, in khayrka mar walba loogu dadaalo. daqiiqad kastoo aad joogto, meel walbo aad joogto, inaad khayrka ku dadaasho. markaad kacayso iyo markaad fadhiisanayso, markaad guriga soo gelayso, markaad ka baxayso, markaad masaajid gelayso, markaad ka baxayso, markaad gaadhi raacayso, intaba ducooyin baan inoo jideeyey inaan ducooyinka akhrino, inaan badino tasbiixda, inaan badino taxmiida, inaan badino takbiirta. wax laga yaabaa in badan inaanan fahmaynin markaan leenahay inay badiyaan tasbiixda. waa subxaana allah, ilaahu adaa xuma kana sahnaaday weeyaan. takbiirtu waa ilaahu la weyneeyo, allahu akbar, ilaahu adaa weyn, allahu akbar. taxmiidu waa xamdi ilaahay lagu xamdiyo oo looga xamdiyo nimcooyinka aragtida, nimcada maqalka, nimcada hadalka, nimcada xoogga, nimcada aqoonta. waxaasoo dhan ilaahay looga xamdiyo la yidhahdo alxamdu lilah, alxamdu lilah, alxamdu lilah. rasuulkuna sal alla alay slam wuxuu inoo sheegayaa, alxamdu lilah subxaana allah tamla'aani maa bayna asamaawaati waalard. subxaana allahi walxamdu lilah waxay buuxinayaan samada iyo ardada inta u dhexaysa. sidaa awgeed walaalayaal, mar walba khayrkeena ku dadaalno oo nafteennu, maadaama ilaahay subxaana wa tacaala waxay quudata ay tahay khayrka, alla ka cabsiga, raacidda rasuulka oo la raaco, lagu daydo meeshii khulafaa raashidiintii ambadii iyo rasuushii ay mareen aanu marno, ku ducaysano aayadda qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegayey, yacni saalixiintii iyo saadiqiintii iyo saabiriintii iyo dadka wanaagsanaa meeshay mareen inaan marno, ka mid noqono iyaga. marka walaalayaal, waxba cilmiga indama dheeriya, waxaan jeclaystay inaan walaalayaal khayrka idinla wadaago oo nafteena aan ku soo duno
ومارتها أنو سوق ما حاجة خير إن شاء الله تعالى أنت مارتها حلقة من كل مينو وأنا أقول لك كذا تكتيكية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن يروي خير كان له دداله شرطنا على قفوا قالوا مؤمن كان وحا وناكسن كان كفوا قالوا وحا حن الراعة وحا وناكسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.